waxaan idin maqashiinayaa tixgabaya oo ku saabsan hoggaan beeleedka ama madax dhaqameedka. intii aanay adduunyadu gaadhin ilbaxnimada dowladnimo ee ummaddu beelo u deganayd, nimankaa aan sheegay ayaa ummadda ka talin jiray oo sidii madaxweynayaasha u dhaqmi jiray isagoo nin walba beel hogaaminayo. inagoo maanta qaadanay dowladnimada adduunku isu xukumaan ee sida casriga ah oo madaxweynihii leh oo ku-xigeenkii leh oo baarlamaankii leh oo maxkamadihii leh oo bileyskii leh, ayaa haddana waxay nagu dhex jiraan madax dhaqameedka beri hore adduunku ka socday. waxaad arkaysaa nin boqora oo kule haddaanu nahay beesha reer hebel kalsoonidii waanu kala noqonay dowladda. waxaa fiican ama adduunkuba maanta ku dhaqmaa in ummad walba meel keliya uun laga xukumo. nimanka sheeganaya inuu nin waliba uu beel hogaaminayo ee madaxweynaha isu dhigayo ee amarkiisu uu soconayo ee ay dadkii qaarkood kala garala yihiin, ma dowladda dhexaa la raacaa mise hoggaan beeleedka? waxay ila tahay in nimankaa la xakameeyo si dowladdu ay ilka u yeelato oo aynu adduunka u raacno. haddii madax dhaqameedku dhulka aana dowladdu ka muuqan uu joogo, oo haddii la isqabsado ama gari jirto ama cidiistisho xaalalka arrimaha yaryaro hoose haddii uu xallilayo dhibaato uma arko. laakiin markuu xukunkii sare ee ummadda u dhexeeyey uu soo farageliyo, waxaan filayaa dowladdaasi inaanay tallaabo qaadi karin, waxay noo hagaagayaana aanu jirin, qayrkeenna aynan raacayn. waxay la tahay nimankaa in la xakameeyo si ay ummaddu xukun keliya u wada hoos timaado oo laga xayuubiyo awoodda ay sheegtaan. arrintaa ayaan gabaygan ku idhi. anigaa qalaadaya oo qaylo taag bidaye, qabyadii sidii aan u waday layla qaban waaye, maantana waxaan qoonsadaan soo qadimayaaye, kollay qaadan maysa ee murtida waanu qubayaaye, qushi hayla yaabtee wax jira qari ma yeelayo. taariikhdu waa soo qoray tan iyo qaabiile, wixii qalinka lagu weeraray qaafka lagu sheegay, ma qallalin halkii lagu qararay qaabka nololeede. qasnadaha waxaa lagu hayaa waa qalfoofore eh, qur-aankaaba lagu sheegayaa qoomkii nebi nuuxe, qubuuraha kuwaa baadhayee qararka jeexayay, qoloftii fircoon iyo ka hele qaar horoo jiraye, quruumii horee tegay haddaa qaar la soo fogaye, qaaruun halkuu seexan jiray waaba qodayaane. qalabkaynu wada haysanee kuu qotomo hoyga, soo qoday qabaal iyo sibraar qori fandhaalkiiye, qorrogii waxaa loogu tegay qalanqal hoosaade, qalabkaa gaboobiyo raggay dama qabaamayso, waa quufla sheekada jirtiyo shay qadiimiyahe, qarbad wuxuu la noolaa suldaan qolo xormaysaayo. boqoradan qardaafaye ee qolo ku xoomayso, qabqablaha ugaas iyo garaad qudhaca loo xaadho, qaansadiiyo leebkii intaan qori la soo saarin, ee uunku wada qaawanaa laysna qalanayay, qarnigaa kuwii talinayaa qooqan caawana eh, qorraxdii dhacdaba noloshu waa qaabad gooniye eh, qufulkii wakhtigu kugu xidhaa qoobka kuu sudhane. qoys waliba kii uu boqraday qaaqla soo dhuraye, nimankaa nin qabyaalad maamuusayo qolo u heesaya, nimankaa qalwada loo goglee qaadhka lagu haysto ee kala qoqobayee bulshada qaarba magac siiyey, adduunyada horaa loo qubee waa qarsanayaane, qaabkaad u nooshahay nin kale quursay waa hore eh, qanjidhkii bukoodiyo halkay qodaxi naafaysay, qalliin baaba lagu fiiriyaa qoonta kaa hadhine, qoqobaha intuu kuu fadhiyo qaybiyaha beeshu ee uu qalqaaliga mirkacay qowdhan talinayo, qaxarkaa aduunbaa ku jira qaylo galabeede. qaynuunka aadami dhigtiyo qaab kalaa jira eh, ninkii qaban karayaa horkaca qoon iskaashada eh, qoomiyaddu waa wada jirkoo laysqadariyaaye, marka laysu wada qayshadaa qaro la yeeshaaye, isma qaban karaan dowladnimo qoliyo reereere, hadday kala qalooto danguud laysla qaban waayo, qolo waliba kay dooratiyo quulle daba luudo, waa quraarad kala daadatiyo qurubyadeediiye, qarannimo markii lagu fikiray quusto odayaale, qudhunkiina huursada ilay kama qashaaftaane.